salaamullaahi calaykum kusoo dhowaada saaxiibayaal sheeko ka turjumaysa arrin saameyn weyn ku yeelan karta guri kasta balse intaynan u gudbin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka inala sheergaraysid oo aad asxaabta kala gaarsiisid. waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan. wuxuu yidhi walaalka ay sheekadan qabsatay: ka hor intii aanan guursan xaaskayga dambe waxaan lahaa xaas aad u qiimo badan oo ii dhashay 2 ilmood. waxay ahayd gabar kaftan badan oo i ixtiraamta, weligeena wax aan dhibsado oo aan xasuusto ima ay odhan. waa rag iyo damaciise. muddo kadib waxaa i galay hawo guur oo inaan gabar labaad guursada ayaan damcay, weliba gabadha labaad oo aan isku barannay magaalo aan shaqo u tegay beri dhoweyd. gabadhii baan guur ka dalbaday, iyaduna way iga oggolaatay. kadibna waxaan weydiistay reerkeedii, aabbaheedna waa uu i siiyey oo soo kaxaysa wadaadka aan kugu mehriyey ayuu igu yidhi. kadibna waxaan qabsaday wakhti aan reerka u tago oo meherkuna ku dhaco. subaxii aan gabadha mehersanayay habeenkeedii ayaan xaaskaygii hore u sheegay meherkayga. inkastoo aan ka dareemay in aanay ku faraxsanayn, haddana wax dagaal ah iima ay muujin. waxaa la gaaray subaxdii ballantu ahayd, waxayna xaaskaygii ii soo diyaarisay quraacdii. aniguna intaan cuna ayaan galay qolkii hurdada oo aan ka soo labistay. kadibna hodheelkii meherka ka dhacayay ayaan toos u tegay. waxaan la aqalgalay xaas cusub, aniga oo ka maqnaa gurigayga muddo gaaraysa 14 maalmood oo aan shaqadaydiina ka fasax qaatay. markii aan reerkaygii hore ku soo noqday, waaba xaaskaygii oo aan juuq lahayn. waxaad mooddaa inuu shoog ku dhacay. wax kasta aamusnaan ayay ku qabanaysaa oo hal kelmad ah kama soo baxayso. markii hore inay ii caroonaysa ayaan moodayay, laakiin sheekadu sow sidaa way ka duwan tahay. muddo bilo ah markii ay sidaa ahayd, welibana ay tahay fool sadkeedii go'ay, ayaan is-idhi bal gabadha sidan kuma eegan kartide, dalxiis yar u wad oo soo maslaxee, maseertirna soo sii. waxaan weydiiyey safar dhulka ah ama cirka ah ama badda ah midka ay xiisayn lahayd, waxayna dooratay safar badda ah maadaama aanay horay doon u raacin. magaalada aan ku noolnahay magaalo la jaar ah oo bad leh ayaan u dalxiis tagnay. kadibna waxaan kiraysanay doon, weliba aniga ayaa naaquude ama wada ka ahaa maadaama aan aqaanay sida loo kaxeeyo. waxaa isugu kaaya darsamay madowgii habeenka, madowgii badda iyo madowgii roobka. waxaannu galnay 3 madow oo cabsi badan ayaa inala soo daristay. intii hore oo dhammi nimco ayay ahayde, doontii baa dalooshantay oo biyuhu soo galeen. qori ayaan ka jarannay oo i xejiso ayaan idhi. annaga oo heehaabayna ayaa naxdintii gabadhii fooli ku qabatay. naxdintii igu darneed ayay ahayd. cabbaar kadib ayuu ilmihii madaxii keenay. waryaaha i caawi ayay igu tiri, oo maxaan u qaban karaa haddaan looxa sii daayo? waannu halaagsamaynaaye. anna wallaahi dheg uma dhigin. iyada ayaa iska umulisay oo waxay igu tiri, war ilmihii waan hayaaye xudunta ii jar, balaaya kugu dhacdaye badda ku tuur ayaan ku idhi. igama ay dhegaysane, xuduntii bay u goysay ilmihii, tii oo gacanna aniga igu haysataa, gacanta kalena ilmaha ayay ilkaheeda ugu jartay. oo inta ay ilmaha dhabta u soo dhowaysatay, anigiina i xejisatay. anigu waxaan ku leeyahay oo ku celcelinayaa, naanaga tuur, yuu ku galaafane ilma lahaane. dhowr saacadood annaga oo sidii u balanbalaynaa ayaa markabna arkay oo na badbaadiyey. kadibna anigu kooma ayaan galay, halka gabadhii aanay ka qasnayn oo iska wadatay howlaheeda, ilmaheedana ay jaqsiinayso. mar kasta oo la is yidhaahdo waraystaba, anigu kooma ayaan galaa oo waan iska ooyaa, halka gabadhu ay uga sheekaynayso wixii dhacay oo dhan. maalintii dambe ayaan weydiiyey oo ku idhi, walaalay qalbi adkida, anigii ninka ahaa ayaan ka sheekayn karin waxa inagu dhacay, adna mid mid ayaad uga warramaysaaye. waxay iigu jawaabtay, ina adeer maalin ka adag ayaa i soo martay oo waxaani wax fudud ayay ila tahay. waxa aan ku idhi waa maalintee? waxayna igu tiri, waa maalintii adiga oo naag mehersanaya inta aad habeenkii ii soo hooyatay, gurigayga ka labisatay ee aad aayar iga baxday. maalintaa ayuu qalbigaygii daatay oo i burburay. markaa waxani waxba ilama aha.
Markii aan arkay in xaaskaygu xaalad adag ku sugan tahay, ayaan go'aan ku gaaray in aan furo xaaskaygii dambe. Waxaan siiyey lacag badan oo raaligelin ah iyada iyo qoyskeedaba, sidoo kalena meherkeedii ayaan siiyey. Waxaan sidaa u sameynayay si aan u badbaadiyo carruurtayda hooyadood oo ahayd gabar nolosha ila soo dhistay. Sheekadani waxay ku dhacday oo ka sheekeeyay nin Soomaali ah oo qurbaha ku nool. Inkastoo ay tahay qodob diini ah oo Alle Subxaanahu wa Tacaala uu raggu u baneeyay inay 4 guursadaan, qof kastana uu isaga danihiisa iyo sida uu wax u qorsheynayo inaga og yahay, balse rag badan ayaa iyagoo isla wax badso ayay guri dhisan mid cusub ku burburiyaan. Waana wax laga qurux badan yahay. Haddaba daawada inala wadaag aragtidaada, waa maxay waxa aadka kuu taabtay ee kaaga baxay ama bulshadu ay ka baran karaan sheekadan? Muuqaalkan waxaa laga yaabaa inuu asxaabta kala anfaco, waxna ku qaataana inoo sheer gareeya.